diinta Siiqiyada ama Siingaha waxa ay ka soo ifbaxday waqooyiga Hindiya gaar ahaan gobolka Punjab ee Hindiya iyo Pakistan dhaca. Waxaana aasaasay diintan oo loo tiiriyaa Nanka Dev. Dadka Siiqa ahna ay u yaqaanaan Guru Nanak oo ay macna ahaan ula jeedaan macallin. Ama kelmadda Siiq waxa ay iyadu ula jeedaan arday oo loogu yeero qofka raacsan diinta Siiqiga. Diinta Siiqiyada waxay soo bilaabatay muddo hadda laga joogo 500 oo sano ka hor, waxaana lagu tiriyaa in ay tahay diinta shanaad ee caalamka ugu weyn markii laga soo tago Islaamka, Kiristaanka, Yuhuudda iyo Hinduusamka. Waxaana lagu sheegaa dadka raacsan diintan in ku dhow 28 milyan oo qof oo caalamka ku kala nool. Aasaasaha diintan ee Guru Nanak waxa uu ku dhashay Punjab oo ah gobol u dhexeeya New Delhi Hindiya iyo Lahore oo dhacda Pakistan sanadkii 1469. Waxa uuna isaga oo yar uu bartay diimo kala duwan sida Buddhismka, Islaamka iyo Hinduusamka. Markii uu jiray da'da sodomeeyada waxa uu iska qariyay dadka muddo 3 maalmood ah, kadibna waxa uu soo laabtay isaga oo sheeganaya in uu yahay rasuul loo soo diray caalamka oo idil. Waxa uuna la yimid diin cusub oo uu ka soo qaatay tacaaliinta diinta Islaamka iyo Hinduusiga iskugu jirta. Geeridiisii kadib waxa uu ka tagay tacaaliim iyo mabaadi' aan kala cadayn, waxaana gadaashii soo baxeen 9 qolo ama 9 hogaamiye oo isxigxigtay, kuwaasi oo xambaarsanaa tacaaliimtiisii iyagoona dhammaantoodiina ka sinaa isla magacii Guru, waxayna ku guulaysteen in ay faafiyaan tacaaliimta diinta cusub ee Siiqiga, iyagoona isla markaasina aanan ka mid ahayn Islaamka walaa Hinduusiga. Hogaamiyihii ama macallinkii ugu dambeeyay Siiqa oo ahaa Jufin Sin ayaa lagu sheegaa midkii ugu saameynta badnaa, isagoona soo afjaray silsiladii hogaaminta macallinnimada. Waxa uuna faray qof walba oo soo gala diinta Siiqiga in uu qaato neenaasta Sin oo looga jeedo libaax. Waxa uuna dejiyey 5 qodob oo waajib ku ah in qof walba oo Siiq ah uu ku dhaqmo. 5taasi qodob oo kala ah: Keesh oo looga jeedo in qofka Siiqa ah inuu dheereeyo ama uu daayo timihiisa madaxa iyo kuwa garka, isagoo aanan xiireynin. Kangaha oo laga wado shanla uu isticmaalayo qofka Siiqa ah xilliga uu doono. Kaasha oo ah in uu xirto surwaal waasac ah sida macwuusta oo kale ah, kaasoo gaaraya ilaa iyo anqowga. Kaara oo laga wado jijin gacanta ay ku xirtaan, waxaana xaaraan ka ah inay qaataan jijin dahab ama jawaahir kale ka samaysan. Iyo kirban oo ah toorey uu labiska ku xirto iyo inuu ku difaaco naftiisa, waxaana sidoo kale xaaraan ka ah in uu isticmaalo qof kale oo Siiqi ah. Iyo cimaamada oo ah waxa ugu muhiimsan ay qaataan iyagoona ku duuba timaha madaxooda. Arkaanta diinta Siiqiyada asaasiga u ah waxaa ka mid ah in hal alle uu jiro, iyo in la dabaqo 5taas qodob ee waajibka ku ah qofka Siiqa ah, iyo in la dafiro in waxyi uu jiro. Waxaa lagu sheegaa diinta Siiqiyada in ay ka mid tahay diimaha aaminsan hal ilaah inuu jiro, iyagoona u yaqaana tawxiidkooda in Kokor oo ah hal ilaah, waxayna Ilaahay ka aaminsan yihiin in uusan wax jir ah lahayn iyo in uusan ahayn lab ama dhadig, isla markaana uu yahay mid ku dhex nool ruux walba. Sidoo kale dadka Siiqa ama Siingaha ah waxa ay siibaan kabahooda markay galayaan meesha ay ku cibaadaystaan iyo markay kitaabkooda akhrinayaan, mana iska mariyaan kitaabkooda gadaal weligood. Waxay Siiqu ku magacaabaan ragga wadaadadooda ah magaca Guru ama macallin, oo ah martabad u gaar ah iyo in ay yihiin kuwo macsuumiin ah aanan qalad galin. Waxayna Ilaaha ay aaminsan yihiin kula xiriiraan nashiidooyin kuwaasi ay u qoreen macallimiintooda. Waxa uu qofka Siiqa ah uu aaminsan yahay wax la yiraahdo karma, oo ah in ruuxdu dib u soo laaban karto ama qofka dhinto inuu dib u soo noqdo sida ay aaminsan yihiin Hinduusamka oo kale. Mana ogola diintooda in qofka Siiqa ah uu guursado wax hal xaas ka badan. Sidoo kale waxa ay waajib ka dhigaan in naagta ninkeeda uu dhinto in xoolo ay bixiso iyo in aysan guursanin, iyo weliba in aysan wax shaqo ah qaban karin. Waxay kaloo rumaysan yihiin in ay siman yihiin ragga iyo dumarka xagga macaamilada iyo dhaxalkaba, mana aaminsana shacabka fadli badan shacab kale xagga Ilaahay agtiisa. Waxaana dhacay mar in ay isku dhaceen hogaamiyihii hore ee Siiqa iyo dowladda Hindiya sanadkii 1984, waxayna ra'iisul wasaarihii xilligaas Indira Gandhi amartay in lagu weeraro macbadka dahabiga ee dadka Siiqa muqaddaska u ah, waxaana labada dhinac ka dhex dhacay dagaal lagu hogay ay ku dhinteen 1500 oo qof oo Siiq ah iyo 500 oo kale oo dowladda ah. 31 Oktoobar 1984 waxay si gaadmo ah ku dileen ra'iisul wasaarihii Hindiya Indira Gandhi, iyagoona ugu arguday dadkii uga dhintay macbadkii dahabiga ahaa. Sidoo kale waxaa la sheegaa in ay dagaalo la galeen dadka muslimiinta iyo dadka kale ee Hinduuga ah. Dadka Siingaha ma aaminsana in uu jiro wax waxyi ah ama nebinimo, waxayna mamnuucan Ilaahay in loo sameeyo wax sawir ah uu leeyahay haba yaraatee. Waxayna diidaan in la caabudo asnaamta iyagoona sidoo kale baneeya cunidda hilibka doofaarka iyagoona xaaraantimeeya cunidda hilibka lo'da. Waxaana inta badan dadka Siiqa ah lagu qaldaa dadka muslimiinta ah,
waxayna sidoo kale ay leeyihiin siingaha ciido kala duwan sida midda ay ugu dabaaldegaan hogaamiyahoodii ugu horreeyey ee Guru Nanak. waxayna sidoo kale ay xusaan hogaamiyaashooda kan shanaad iyo kan sagaalaad. dadka Siiqa ah waxa ay leeyihiin laba kitaab oo la kala yiraahdo Adi Granth iyo Dasam Granth. calaamadda ay caanka ay ku yihiin ay isticmaalaan ayaa iyaduna lagu magacaabaa Qanda, ay ula jeedaan in ay matasho awoodda ruuxiga ee adduunyada ee jiritaanka hal Alle.